halkani waa BBC been iyo wax kama jiraan oo aad kala xiriirtaan injineerka gaaban FM-yada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo barta internetka aynu ku leenahay ee cayayaan.com haddana ka kala dhaqaaqa warkii oo isku qasan. afar nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka argagixisada ee ka dagaalama waqooyiga jariiqatada oo lagu qabta xadka ay la wadaagaan wareeriga iyo xaaladda magaalada qodqodan ee ku taala dhulka hoostiisa degan kadib dagaalo sokeeya oo ka socda 40 maalmood ee lasoo dhaafay. sarkaal sare oo hadla ciidamada wareeriga ayaa ambaaray madaxa ugu tuuray ciidamada jariiqatada kaasi oo sheegay inay geystaan xadgudubyo ka dhana muwaadiniinta wareeriga ee ka talaaba xadka jariiqatada. dowladaha quudda ballaaran ee qaniijyada kulul sida shinnida xulunka wareeriga qaalmadhoobaha oo ugu baaqay dhilmaanyada inay joojiso koruqaadida ay ku sameynayso hubka sunta ee waxgumaada ee loo yaqaano maleeriyada kaasi oo maalmihii ugu dambeysay ay u tijaabinayeen si isdaba jooga. ra-iisul wasaaraha aboorka oo ka qayb galay kalfadhiga saddexaad ee golaha cayayaanka ayaa ballan qaaday inuu bixin doono mashruuc ay ku baxaysa 4.5 bilyan oo geni wareeriga ah taasi oo lagu dhisi doono dadweyne dheeraad ah si loogu helaado qaxootiga soo fatahayo wareeriga oo gacan buuxda siiyay quraanjada waddankaasi oo ka taagan tahay xaalad xasilooni darro iyo sarkaal sare oo u qaabilsan midowga cayayaanka waddanka quraanjada oo sheegay inay kusoo rogi doonaan gebi ahaan waddanka oo dhan bandow iyo inay ku daadin doonaan ciidamada la dagaalanka argagixisada magaalooyinka waaweyn sida tii hore tanka weyn tusmuxun talalay kuwaasi oo la sheegay inay xaaladooda amni faraha ka baxday. ciidamada cirka ee jiir oo adeegsanaya diyaaradaha iyaga iswada ee loo yaqaano droniska ayaa duqeymo baan ka geystay bariga iyo bartamaha waddanka bisid halkaasi ay ku direen 24 ciidamada difaaca bisida halka ay ku dhaawaceen 25 kale in ka badan 400,000 oo shacabka bisida ayaa isaga barakacay waddanka iyaga oo kusii jooda wadamada ay jaarka yihiin sida qodow iyo dudumagal. hase ahaatee warar dheeraad oo aan ka helayno waddanka masquul ayaa waxaa la sheegaya inay quusto doonaysa 24 muhaajiriin baraanbara oo isaga gooshay musqusho labadeeda gadi asuun BBC